Bismillah. Ismail Warsame Digital Media. And saaka waxaynu ka hadlaynaa yaraha Soomaalidana aan jecelahay xoogaa buuq ama confusion ku jira inaan isku dayo bal inaan ka saari karo. Mawduucuna wuxuu ku saabsan yahay dowladda Djibouti. War Djibouti xagee bay ka taagan tahay ama doorkee bay ka ciyaarday waxyaalihii ka soo dhacay dagaalkii sokeeye burburkii jamhuuriyadda Soomaaliya iyo doorkay ka soo ciyaarday. Djibouti saad ogsoon tihiin waa dal aad u yar waxyaalahu qaban karo ama resource-ku ay iska kooban yihiin waxayse cuqdo ka qabtay oo hoosaasiyey jamhuuriyaddii Soomaaliya ama dowladdii Soomaaliya. Dowladdii Soomaaliya markay duntay madaxdii Djibouti siiba Ismaaciil Cumar Geelle waxay isku dhereeriyeen oo gashadeen kabihii Generaal Siyaad Barre. Dhinaca Carabta waxay isku dayeen inay Arab League wax ka noqdaan oo noqdaan badiilka Soomaaliya. burburkii Soomaaliya waxay isku dayeen inay kasbadaan inay hantiyaan dhaqaalaha Soomaaliya. Ogowo hantidii Soomaalida dadkii xamar ku haray ayay gacanta u gashay. Dadkaasu aqoonsi ma haystaan, bangiye ma haystaan, haddii la kuri nabadgelyo ma haystaan. Waxay bilaabeen inay Djibouti looga furo bangiye account bangi looga furo, elsina looga furo, masruufka xamar bariiska iyo baasada ee wixii la mid ah ana elsi Djibouti leedahay lagu keeno Soomaaliya oo halkaas ay ka faa'iideystaan ganacsatada Djibouti sida Booro kale iyo Ismaaciil Cumar Geelle laftigiisa. balaayiin lacag oo dhiig ku sharaxan yahay ama ku daatay ayaa bangiyada laga jiray Djibouti dhanka dhaqaalaha waxay bilowday inay koobigarayso Dubai iyo Nairobi. dhanka siyaasadda waxay koobigaraysay Addis Ababa oo shirar Soomaalida loo qabto iyo baasaboorro la siiyo oo lagu soo daro. Djibouti waa dal isku dayay xataa in uu yani shirkadihii Soomaaliya joogi jiray waagii jamhuuriyadda Soomaaliya intaasa burburin inay la xiriiraan oo yiraahdaan war u soo guura Djibouti si customerskeennii ama kuwii Soomaalida halkaan aan uga sabalay garayno halkaan wax uga diro. Djibouti markii la isku soo xooriyo waxay isku dayday inay Soomaaliya masasho oo iyadu tahay Soomaaliya. shirarkii la qabanayay Djibouti xataa Soomaalida dhexdhexaad uma ahayn maadaama meesha dhaqaaluhu ka imaanay meesha dhaqaaluhu u xiran yahay meesha accounting bankiga ay tahay dadka Muqdisho ka imaanaya. waxaad moodaa dadka Muqdisho inay soo dhaweyn jireen si gaar waa meesha Cabdisaaq Xaaji Xuseen ka yiraahdo Allahu naxariistee 1991 markii Djibouti la isugu tagay oo Cali Mahdi iyo markaas madax maartay laga dhigay wuxuu yiri dadka Soomaalida ah waxaad moodaa qaarna inay walaalihiin yihiin dad u soo dhaweysaan qaarna saaxiibadii
انت هدانري وحان وجود بيا قصة عجيبة وأنكأها جوبجوغر وأنكأها كن يسقال بقول يسقاشن كريسيدي دور بريكة بعدي مركز دولة بونتلان لود واقي والله أساسي أيها وحن سوقا رقيلة دان بدع عسكر علي قبائل سومالي هالكاد دقن أيها أفضوبي لوننو فرنسيس waxay noqotay hawsha ugu horeysa dawladii Puntland hadda dhalatay qabato inay isku daydo inay sii dayso dadka Faransiiska oo qafaalay waagaas waxa nagala shaqeynaya arrinta yani xagga wada hadallada iyo maaragtay facilitieska diyaaradaha waxaynka qoladii qaramada midoobay UNDP marka waxa la oran jiray UN Resident and Humanitarian Coordinator nin Swiss u dhashay oo la oran jiray Dominique Lagenbacher iyo officerkiisa ama taliyihii xagga nabad sugidda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa iyaguna maartay boosaaso noogu yimi ogow annagu garow waan ka tagnay wafti annagoo ah dawladda cusbeeda hadda dhalatay boosaasaa dhaadna qoladaasa iyaguna noogu yimaada waa ku guulaysanay inaan sii dayno in la sii daayo labadii Faransiiska boosaasaana lagu keeno waxay noqotay in la qaado oo Djibouti laga safaaradda lagu wareejiyo Faransiiska ee Djibouti anigoo ah agaasimo guud markaas la magacaabay iyo Xasan Abshir Faarax Allah u naxariistay oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha oo hadda la magacaabay Lagenbacherkii qaramada midoobay iyo taliyihii nabad sugidda ee UN-ka oo weyn la oran jiray ayaa diyaarad UN raacay oo labadii Faransiiska ku qaadnay saan ugu dhiibno Faransiiska diyaaradii markay soo degtay Djibouti ambulance ayaa hoosta ka soo gashay labadii nin oo Faransiiska ahaa waa ka haysteen qoladii UN noo socotay Lagenbacher iyo kii maaragtay weyn baabuurtoodiiba iyaguna airportka soo galay oo aniga Xasan bay noqotay inaanu immigrationka Djibouti sii mar labadeedu waxa sidna diplomatic passport oo Puntland intay sanadaan ka hor waagii Addis Ababa iyo Djibouti aanu aadi jiray shirarkii qaran aanu aadi jirnay diplomatic passport baan wadanaa oo diplomatic visa ku taalo Djibouti counter markaan tagnay immigrationka xogaa halka fariistaaliyaan iyo Xasan dabeedna nusaac waxaan lagu soo celiyay baasaboorradii oo la soo tirtiray viisadii lagu soo dhuftay shaabad in viisadaas la banaday ama la tirtiray yaa baa ilaahay noo keenay meesheedii baan iska joognay kuwii UN-ka noo yiri warkaale hotelkii Sheraton tago magaciiskiyo ma tagaynaan ilaa Djibouti dawladda Djibouti ayna siiso apology wax la yiraahdo ama raali gelin على كل حال شيء كده كبعدي هبينكي ترانسيت هولكي Djibouti ايربورت ايام كبرين انو مسؤولين دولة بونتلان صباح دينا ديارات UN يعني أنا يا حسن وكلية وصار علي قرو برقدي أنك سودي محي Djibouti وحاو سمينيس عيالها ياب كلو حوي إن ما دام aysan kuwa UN waxba ka qaadi karin waa dawladda yaro daciifka ee Faransiiskana saldhig ay meesha ku leeyihiin oo dawlad weyn oo aysan isku taagi karin caradii annaga nagu loo dhacay nimankii aanu dhiibnay ilaan war ma hayne Radio France International
ayaa warsii daayay in saraakiil dowladda Puntland ka socota iyo maaragtay United Nationski ay ku wareejiyeen labadii qof oo maaragtay la haystayaasha ahaa safaaradda Faransiiska. حتى سفارة فرنسيسكا شربان كلها سانو أرمهاس أرمه كلا بهو هذا جبوت وادي ديران ما شاطر عرضا مركا أنا ما أعرف شيء أصلا أنو الكورونا أنت أصلا ما أنت والله هذه أدبا وما سنتي تكلم طبعا.